halkan waxaan waraysi gaara kaga qaadayaa wasiirkii hore ee madaxtooyada Soomaaliland sidoo kalena ah siyaasi caanka ah Soomaaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi ugu horeyn telefishinka Ariel uu kaaga mahadnaqayaa waraysigan aad dabcan siinayso in Soomaaliland waa ogtahay hadalhaynta maalimihii u dambeeyay socotay waa buugga uu qoray hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan buugga oo arrimo badan lagaga hadlay xafladiisina adigu dabcan aad ka qayb gashay ugu horeyn buuggaas sideed u arkaysaa waan kaaga mahad celinayaa kulankan iyo waraysigan waa dhab buuggaas Xirsi Cali Xaaji Xasan qoray ee uu ugu magac daray miyi ilaa madaxtooyada miyiga ilaa madaxtooyada xafladii lagu soo bandhigay waan ka qayb galay hadal waan ka jeediyay waxaan goobta ka sheegay marka laga tago hadalkii kale balaadna ee meesha ka jeediyay aan ka afeeftay inaan buugga akhriyin xilligan hadlayay buuggaasina wuxuu la soo baxo uu deeleeyahay neef waliba sirtiisu iibsamaa waan arkaa sida loo hadalhayo buuggaas runtii waxaan jecelahay buugga inaan wax faallaa maxamuud ahaan ka bixin waxaan jecelahay inaan u daayo qiimeyntiisa iyo ka falcelintiisa bulshada Soomaaliland waxgaradka bahda qoraalada wixii uu gafaf ku duugan iyo wixii uu dhaliilay iyo wax wanaag leeyahay intaba intaasaan runtii ku ururlaha buugga waxa uu ku xusay hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan in 45 maalmood kadib waa markii madaxweynuhu uu dalka qabtay idinka isaga iyo adigaba la idin yeeray in arinta maxaad ka leedahay arinta Xirsi uu buuggiisa ku qoray anigu maxamuud ahaan goobjoog kamaan ahayn kulan nologu yeeray madaxweynuhu xilligaa uu talada dalkaba ku cusbaa ee uu buulcawska ahaa ee afka qalaadna lagu yahay honeymoonka kulan loogu yeeray oo macnihiisu daaranaa in madaxweynihii xasuustiisu luntay oo aanu ama xumaatay uu iscasilay la qabeeyay muxuu ahaa walwal ka muuqdo arinta anigu goobjoog kamaan ahayn sida darteed dhacdada marxaati kama yihi waana mid aan sugnayn way mudane Maxamuud Xaashi Cabdi sidoo kale hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadan Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu buuggiisa ku qoray in labadii sano ee uu ka maqnaa in xukuumadda dabcan in marwada madaxweynuhu ay talada dalka ku soo dhawaatay waa sida buugga ku qoran waqtigaana adiga ayaa wasiirka madaxtooyada dabcan ahaa arinta maxaad ka leedahay wuxuu wax ka sheegi karaa muddaxileedkii uu joogay madaxtooyada muddadaana wuu ka warramayo marwada madaxweynaha wuu bari yeelay ammaantii iyo sifooyinka ay lahaydna wuu sugayo aniguna waan sii adkaynayaa marwo wanaagsan aqoon-yahana ilaalisa sharafta ninkeeda iska dhowrta inay farafarayso maamulka dawladda wasiiradaan telefoonna kula hadlin ayay ahayd muddada labada sanaana sidaasay ahayd Xirsi hadduu bari yeelay muddaduu joogay marwada Aamina Waris dee muddo aanu meeshaba joogin eedaynta u eedeeyaa waa eedayn jaban waayo ruuxna kama warramo meel aanu markaa joogin waxay u muuqanaysaa uun dee waranwaryo iyo hadal uun aan loo miidaantay laa yashhadu shaahidun bimaa laa yaclam marag waxaanu ogeyn iyo meel aanu joogin dee waxba kama furo ku fogaan maayo intaas uun baan kaga soo koobi lahaa ammaan bay mudan tahay marwada madaxweynuhu sifaadkaasay lahayd wax faragelina labadaas sano iyo intii ka horeysay toona maamulka dawladda kumay lahayn mudana waxaad ka mid ahayd wasiiradii waqtiga dheer la soo shaqeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraaye madaxweynihii hore ee Soomaaliland haddana dad badan waxa ay si uga hadlayaan
oo markii buuggaasi dhinacii xusuusta iyo wuxuu ka qoray hogaamiye xirsi cali xaaji xasan xaaladda caafimaad ee madaxweynihii hore ayay dadbasi uga hadleen adiguna waqti dheer waad la soo shaqaysay maxaad arrintaa ka oran lahayd waa su'aal fiican weeye badriyow waxaan leeyahay madaxweyne siilaanyo waxaan la soo shaqeeyay waqti dheer waxaan ahaa gacan yarihiisii xilligii uu u tartamayey halganka ugu jiray jagada madaxweynenimada ee uu ku guulaystay waxaan ahaa 7 sano wasiir ka mida kaaliyaashiisii waxaan ahaa gacan yarihiisii gaarka ahaa 2 sano u dambeeyey caafimaadka madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Siilaanyo waxa uu ahaa mid wanaagsan garashadiisa iyo caqligiisuba waxay ahaayeen taam taasi waa suurto gelisay 7 sano in Axmed Siilaanyo uu dalkan iyo dadkan kala soo dabaasho duruufo adag oo kala duwan haddii Axmed Siilaanyo xiskiisu dhiman yahay ama ay wax ka khaldan yihiin dalkana ma hogaamin kareen waxna ma maamuli kareen waxna ma soo doojin kareen Axmed Siilaanyo ma ahaynin maxbuus oo meel ku xidhan oo ay ka warrami karaan koox iyo raxan ku xeeran waxa hogaamiyihii qarankan waxa hogaamiye bulshaawi u furan oo bulshada kulamo badan la qaata si joogta ama maalin la haday tahay xubnihii xilaalka u magacaabay haday tahay madax dhaqameedyadii qaranka dalka haday tahay madaxda ururada bulshada haday tahay madaxda xisbiyada qaranka haday tahay madaxda dawladaha dunida ee maalin walba imanayay ee qasriga madaxtooyada imanayay dhammaantood baa xiriir bulala marka xaaladiisu ma ahayn xaalad la qarinayo oo mugdi ku jirta ma ahayn Axmed Siilaanyo wuxuu ahaa nin weyn oo daa taasi ma ahayn macnaheedu ama taasi carqalad kuma keenin hogaamintii qarankan iyo xilgudashadiisii toona Axmed Siilaanyo oo ninka xaaladiisa aan ka warramayaa wuxuu ka mid ahaa marka la barbardhigo madaxweynayaashii ka horeeyay wuxuu ahaa madaxweyne ugu xafiis fadhiga badnaa wuxuu ahaa marka madaxweynihii ugu safar badnaa dibad iyo gudaba waxa uu qaamuuska qasriga madaxtooyada dalka looga taliyo ka saaray eray la yiraahdo hal ku dhig iyo hal hays la yiraahdo madaxweyne ma soo digin oo jiri 7 cisho maalinta jimcuhu nasan jiray 6 cisho kale uu shaqeyn jiray maalinta isniinta cid ma arki jirin wuxuu ku shaqeyn jiray dusha waraaqaha wixii correspondence u yimaado akhri jiray wuxuu qorayuu diyaarsan jiray marka wuxuu ahaa yani mas'uulkii ama ruuxa caynkaas waxa jirtay xano iyo dacaayado madaxweynaha caafimaadkiisa ka dhana oo aan ugu bahayn xilligaaba dad ama cadowa ama dad daxaasnimaduna way iska jirtaa ama mucaaradad fogaatay oo cuqdad iyo ceel qabis kale ba iska jiri karta ku arinta uga ma jeedo mucaarad oo dhan iyo mas'uuliyiinta mucaaradada xaasha laakiin afraad baa laga yaabaa inay waxa bilaabeen marka warkaasi wuxuu jiray waa war hidayso meelaha la dhukusi jiray buu ahaa waxa jiray nin siyaasi oo caan oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Cismaan Cabdulle Cabdi Farjar ku magac dheer oo Axmed Siilaanyo ay saaxiib ahaayeen kulii dhexe xisbiga ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM u dambeeyay kamid ahaa golihii wakiilada ee shirweynihii Boorama lagu doortay kamid ahaa aniga iyo Axmed iyo Cabdi Farjar ba isku golaan ahayn saaxiib bay ahaayeen muddo dheer Cabdi Farjar Axmed Siilaanyo ma arag waxa meelaha ku gaaray isagoo burca jooga odaygi waa asaasaqay waxna kala garan maayo Cabdi Farjar waqti dheer baan Axmed Siilaanyo sarag 2016 waqti aanu malaynayo madaxweynaha safar dibadda ka soo laabtay ayuu madaarka dadkii kaga hortagay kamid ahaa kuyuugii uu galay madaxweynuhu sida caadiga ah markuu dadku soo dhaweeyay hareertaas uu hal qoorweynta qaranka kaga soo bilaaba uu salaamaa markuu Cabdi marayay ay muddo dheerna Ismaaciil Cabdi gacan qaaday oo war Cabdi Farjar bal iska waran
markaasuu cabdi ila dacaadana waa maqlay mar rumaysan laakiin warkaa ku badnaa wuxuu yidhi madaxweyne maxaa la ilahaa waada saasaqday oo waa takhaquftay soodigan i gartay inagoo muddo dheeraan isarag waxaan uga socdaa dhacdooyinkii runta ahaa bay ahayd axmed siyaadaan qarankan isagaa hogaaminayay hogaamiyaasha ummadda waxaa lagu qiimeeyaa habboonaanta xilgudashadooda iyo fayoobaanta caqligooda sida fayoobaanta garaadkooda waxaa lagu qiimeeyaa sida ay uga gudbaan duruufaha adag ee ka hor yimaada go'aamada ay qaataan sida ay u yihiin kuwo musiiba ama xikmad u leh waxaan jecelahay bal inaan soo qaato oo bulshadu ila wadaagto dhowr dhacdo oo kala duwan oo muddaxileedkii axmed siilaanyo uu qarankan maamulayay arrimihii adkaa ee soo waajahay go'aamadu qaatay iyo sawirka ay bixinayaan dhacdada koowaad waxa weeye 45 cisho waqti aan ka badnayn waqtigii madaxweyne siilaanyo xilka qaranka loo dhaariyey ee uu tala dalka haaneeday waxaa soo baxday xukuumaddii uu talada kala wareegay ee xisbigii udub ee uu hormoodka ka ahaa madaxweyne daahir riyaale kaahin oo si wanaagsan oo taariikhda ku xusan yeelay waxaa soo baxday dareemo ah in dowladdii cusbay la wareegtay khasnad madhan iyo deyman ciiddaa ka badan shaqaalihii qarankoon muddo dheer mushaahar qaadan dalkii oo la boobay dareemo caynkaasa rag waaweyn oo xukuumaddii axmed siinaaye ka mid ah wasiiradiisa kuwii ugu waaweynaya ayaa waxay madaxweynaha tale ugu soo jeediyeen iyagoo ku adkaysanaya in arrintaa wax laga qabto oo isbeddelku ka bilaabma arrintaa isbeddelkii kulmiya waday inuu arrintaa ka bilaabo oo raggaas wasiirada ah gaar ahaan raggii la calaamadiyey ee la eedeynayay waxaa ka mid ahaa wasiirkii maaliyadda cawil cali ducaale waxaa ka mid ah guddoomiyihii baanka cabdiraxmaan ducaale waxaa ka mid ah wasiirkii howlaha guud siciid sulub in raggaa la xidho maxkamad la taago axmed siilaanyo go-aan adag buu qaatay wuu ku gacan saydhay si adag buu uga hor yimi arrintaa uma arag maslaxadda ummadda iyo dalkan inay waafaqsan tahay midnimada iyo wadajirka ummadda jawigii sida dimuqraadiya nabdoon talada la isugu wareejiyey inay carshaynayso sumcad xumo Soomaaliland horseedaysa uu arkay ganabku ku dhuftay waxay ahayd tala sawaaba oo saxabu madaxweynuhu qaatay dhacdada labaad waxa weeye xilli laga joogo markaa sanad xirsi buuggiisa uu ku xusay xilligii uu chief of cabinet-ka sanadkii uu ahaa in qayladu ku badnayd buuq badan jiray dacaayado ka dhani jireen oo dad badan wadeen buuggiisa si fiican buu ugu xusay waana xaqiiqo jirtay bay waxaa jiray 10 oday oo waayeel ah oo ka soo jeeda beesha madaxweynaha ayaa madaxweynaha u yimi ballan bay ka qabsadeen way yimaadeen markii uu soo fadhiisiyo soo dhaweeyay buu shirka inoo bilaaba waxay yiraahdeen madaxweynaha si shirkeenu inoogu bilaabmo waxaanu ka codsanaynaa inaad naga saarto wasiirka madaxtooyada oo markaa wasiir muddo yar ahaa xirsi sanadkii chief of cabinet-ka kadib hay wuxuu ku yidhi waryaalo waa nimankaas way iswada garanayeen madaxweynaha waa rag waaweyn oo raggii soo dhisay ahaa taageerayaashiisa ahaa maskax iyo muruq iyo maalba la barbar joogay waxba magacooda xusi maayo wuxuu ku yidhi war ninkani waa gacan yarahay waxa aad igala hadashaan markaan qoro diiwaangeliye ee aynu ka qaadaa dhigno kolleyba wuu ogaanayaa way isagaa fayl garaynaya markaa waxba ninay ka qarsoon yihiin maahe waa gacan yarahaygiiye inoo wada shirku oo arrinta wada waxay yidhahdeen madaxweyne wasiirkan isagaanu ashkataynayna dacweynayna markaa ma rabno inuu nala joogo wuu ku soo booday wuxuu yidhi madaxweynuhu maya maha sidaa soo isaga dacweyn maysaan ashkatayn maysaan uma socotaan haa waxa u socotaan ma intaasa haa wuu fadhiyaya wuu xaq u leeyahay inuu dhegaysto dacwadaha iyadaa ka dhana dibadna isdifaaco wuu ku adkaystay madaxweynuhu waxaana u arkayay inay sax ahayd mowqif sax ahayd oo
go-aan hogaamiye oo sax u ahaa hadalkii waa margaday way ka xumaadeen waxay dhahaan war madaxweynuhu ninkan xilka ka qaado ninkan isagaa la hadal hayaa dhibaataan isaga hayn ma jirto war xilka sidaa la iskagama qaaday ninkan daanaa magacawday suuqa laga hadlayaa magacaaban xilsanaa shaqada u dhiibtay waxaan qabadii inuu xilkiisii gudanayo maxaa ku eedaynaysaa oo sheega arrimaha xilku ciyaar la iskama qaaday badka soo dhiga hadalkii waa murgay waa kala tageen waxay ahayd axmed siinaanyo go-aan saxa oo hogaamiyenimo qaatay ma ahayn xilsi oo keliya axmed siinaanyo dhaqan buu lahaa dadku xilalka u magacaabay inuu difaaco eedaha ka dhankaa inuu iyagoo bandhigo muxuu ahaayey rag fara badan oo dee aniguba aan ku jirana dee wuu difaaci jiray arrinta saddexaad waxa weeye waa arrinta xilsi laftiisu dhacdooyin badan buu buugga ku qoray oo tusaale u noqon kara hogaamintii axmed siinaanyo waxaa ka mid ah dhacdadii shirkii london muxuu ahaa madaxweynaha iyo wafdigiisu ay tageen down street number 10 taariikhdii markii ugu horeysay 17 abril 2013 bay ahayd madaxweynaha madaxdii dowladda ingiriisku ay aad culays ugu saartay inuu shirka yimaado madaxweynuhu maslaxadu ma arag go'aan adag buu qaatay xilsi laftiisu buuggiisu ku xusaya inuu subax la soo hadlay wiil adeer go'aan baan qaatay inaan meesha tagin waxay talaabo hogaamiyenimo haddaan qarankan daanu madaxweyne ka ahayn go'aamada adag oo maankiisii miyirkiisu fayoobeyn dee ma qaadan kareen waxaa ka mid ah oo afraad xisbiga kulmiye khilaaf xoog la soo galay loolan adag baa muxuu ahaayey dhex maray muddo ayuu xisbiga kulmiye wuxuu la ragaaday khilaaf hadheeyo oo dhexdiisa mucaaradad xooga oo dibadda xisbiga kulmiye iyo madaxweyne siilaan iyo xukuumaddiisa ragaadiisay ma jirin laakiin dagaal adag baa xisbigii talada dalka hayay ka dhex dhacay waxaa isu soo sharxay guddoomiye rag badan baa wax doonayay laakiin raggii ugu cadcadaa waxaa ka mid ah wasiirkii maaliyadda cabdicasiis maxamed samaale xilligaa oo ahaa siyaasi culus rugcadaaya nin kambaynada ku fiican ah wasiirkii maaliyaddana madaxweynuhu markii doorashadu soo dhowaatay shirkii guddoomiyaha aakhirkii lagu doortay muuse biixi jagada guddoomiyaha nimada rasmiga loogu doortay markii hore kumeel gaadh buu ahaa 29 abril 2014 ka hor waqti yar wuxuu arkay inuu xisbigu burburi karo dhaawacyo xoog leh ku iman karo hadday sidan ku socoto cabdicasiisna uu madasha isu soo taago talada markuu isku qanciyey dabcan dadna la tashaday wuxuu go'aansaday wuxuu yeedhay wasiirkiisii maaliyadda goorfiida cabdicasiis maxamed samaale oo ah raggii soo dhisay wasiirkiisii maaliyadda nimuu ku kalsoon yahay isjecel yihiina wuxuu uu bareero wuxuu yidhi cabdicasiis waxaan doonayaa jagadaa guddoomiyenimada tartankeeda inaad ka hadho wasiirkii maaliyaddaa tahay jagadaadaa joog muusena xisbigiisa ha haysto muuse biixi cabdi go'aan adag oo qaraar buu ahaa uu u arkay inuu ku kala daweyn karayo ama ku kala xasayn karayo haldoorkiisa loolamaya wuxuu arkay tartanku waa xalaal waa la tartamaa dimuqraadiyadda ku jirta wuxuu arkay inuu xisbiga dumin karo marka rag awood u laho culus uu ku tartamo go'aan adag buu qaatay axmed siinaanyo waxay muujinaysaa dhacdadaasi hogaamiyenimadiisa iyo haldoornimadiisa uu qarankan ku soo maamulay waxaa jirtay doorashadii golaha deegaanka 29 bishii November 2012 ka dhacday dalka oo si wacan u dhacday oo madaxweynuhu fuliyay ballanqaadkiisa ahaa inuu ururadii furo cusbaa waxaa ka soo baxay khilaaf xoogan doorashadii degmada saylac gaar ahaan laba beelood oo walaalaabaa baa degmada saylac degmo doorashada saylac gobolka Seleal ka hadli maayo waa degmo doorashada saylac oo degmo bii ah oo 17 kursi xildhibaan laga doorto waxaa ka soo baxay khilaaf weyn degmada waxaa maamulkeeda gacanta ku soo hayn jiray beesha ciise waxaa dhacday waxaa 17 xildhibaan waxaa ka soo baxay 7 xildhibaan oo beelaha ciise iyo 10 xildhibaan oo beelaha Gadabuursiya arrintaas waxay sababtay in ay fadhiistaan xildhibaanadii beelaha Gadabuursi oo doortaan guddoomiye iyo ku xigeen isku beel ah
xuseen iidla barkhadle iyo sacad daahir cige ayay u doorteen guddoomiye iyo ku-xigeen arrintaas waxay saamaysay nabadgelyadii deganaanshihii guud ahaan gobolka awdal gaar ahaana gobolka sare cabatiin weyn xoog weyn bay iyo gilgil bay ku samaysay madaxweynaha mas-uuliyad baa xukuumadda ka saaran wafdi buu diray saylac wasiirro u diray bal arrinta gacanta ku qabta wasiirro iyo xubno mas-uuliyiin oo kalena waxaa loo diray magaala madaxda gobolka awdal boorame anugu ka mid baan ahaa maxamuud ahaan wafdi madaxweyne ku-xigeenka hogaaminayo waa la isku soo noqday arrintii xukuumaddayadii lafteedii iyo madaxdayadii ku kala aragti baan nahay halad baabi iyo doorashada golaha deegaanka ee saylac hala tirtiro ra'yi leh maya de si xalaale u dhacday maxaa loo tirtiraya madaxweynaha adda-eed marka taladu soo dhabaqdo guddoonka u dambeysay madaxweynaha leh xilligaa waxaa wasiirka arrimaha gudaha maxamed nuur caraale duur oo si wanaagsan u shaqaynayay xaqiiqdii madaxweyne go-aan adag buu qaatay wuxuu guddoonsaday in sideeda doorashadaa loo daayo oo dee waa doorasho iyo cod dhacday aanu qalindaarin iyada oo aan waafaqsanayn habkii labada reer la isugu wadi lahaa haddana waxay noqotay qasb doorashadii in sidii loo daayo madaxweyne go-aan adag buu qaatay madaxdii iyo ergadii dadkii ciise ee odayaashii halka u yimid gendiga rag ka socdaa ku jireenna wuxuu ku qanciyey war dowladdan hayo waxaad ka tabanaysaan ee ka doonaysaan wax iga weydiista aniga laakiin arrintaasi waa arrin aan waxba ka qaban karin khilaafkii sidii baa lagu dabiyey laba beeloo walaalo isjecel bay hal wada dugo isdhala sidii baa bagooda burcad la isugu mariyey khilaafkiina lagu biyey waxay dhacda aada iyo aada saameyn u leh gobol weyn runtii ka dhacday waxaa iyadana jirtay 2015 laba beelo oo walaalaba isku dilay degmada Taleex ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ciidamo badan ayaa madaxweynuhu amray in halka la geeyo Taleex Arooley hol si nabad loo sugo maamul fidina dhinac ka ahay arrintaasi buuq badan bay abuurtay Soomaaliya sida imankaba ciidamadeena tukaraq loo geeyay uga qaylinayaan ayay uga qayliyeen dacwooyin bay qoreen beesha caalamka culays baa kaga yimi madaxweynaha beesha caalamka dowladda Mareykanka Ingiriiska midowga Yurub ay leeyihiin ciidankiina ka soo saara Taleex sida iminka tukaraq madaxweyne Muuse Bixiba loo saaray culayska in uu ciidanka ka saaro uu runtii go'aan geesinimo leh u qaatay in ciidanka halkii ku hayo madaxweyne Siinaaya tallaabadaas oo kale u qaato dhaguma jalaqsi wuxuu arkay arrintan inay tahay arrin xad iyo siyaasad saameyn ku leh wuxuu halkan ka diray wafdi uu wasiirka arrimaha dibadda maxamed biixi yoonis hogaaminayo anigu ka mid baan ahaa wasiirka caafimaadka xagla toosiya ka mid ahaa wasiirka gaashaandhigga cadami baa ka mid ahaa wasiirka qorsheynta Dr. Sacad baa ka mid wuxuu nagu diray inaanu bulshada caalamka beesha caalamka ku qancino ciidanka inaanu soo saarayn ciidanku xad dhulkiisii joogo dhibaatana aanan wadin waxay la arrin adag oo qarannimada Soomaaliland saameyn ku leh waxa jirtay 26 Oktoobar 2015 khilaafkii xisbiga kulmiye ka dhaxdhacay iyo xukuumadda waxay sababtay in xubno badan xilalkoodii iska casilaan oo xirsi cali xaaji xasan uu ka mid ahaa isagoo wasiirkii madaxtooyada ahaa kursiga jagada markii dambe madaxweynuhu iyo magacaabayna uu isagu iskii u baneeyay maalin adag bay ahayd walwal baa shacbiga Soomaaliland galay siyaasiyiin waaweyn oo golihii xukuumadda ka baxay tijaabay ku ahayd hogaaminta madaxweyne Siinaaya arrintaas bulshadu waxay wada dhigaystay duhurkii iyadoo wada warwarsan oo warbaahintii wareysiyadii iyo istiqaaladihii iyo iscasilaadihii la dhigaystay mas'uuliyiinta duhurkii waxa la sii daayay wareysi madaxweynaha ay ka qaaday BBC-du Axmed Saciid Ciga oo nuxurka uu halkudhigadiisa ay ka mid ahayd nidaamkan waa nidaam madaxtooyo oo u jeeday ma aha dawlad ra'iisul baarlamaan dawlad ka dhisan gole baarlamaano hadday bartagaan dhacaysa waa nidaam madaxtooyo xubnaha de ila shaqeyn waaya maamulka la socon kar waaya xaq bay u leeyihiin de ka iscasilaan oo ka tagaan kaligoodna cidda xilka qaadi karta ma aha dad badan baa shaqala oo jooyinka buuxinaya xilalkaana waan buuxin doonaa iyagana hadal gobonnimo leh iyo galad oo aanu ka tagin xitaa is abaashigii wada shaqeynta
iyo kaaliyanimadii ay u ahaayeen ayuu ka daba tuuro wuxuu ilaahay meel roon iyagana geey waxaan uga socdaa maalin kadibna wax buuxiyay jagooyinkii ugu muhiimsanaa waxay muujinaysaa duruuftaas siduu uga gudbiyey dalka shacbigii u dejiyey siyaasaddii u soo dabaalay u muujiyey inuu yahay hogaamiye talada gacanta ku haya oo adag waxaa iyaduna ka mid ah dhacdooyinkaan jecelahay inaan halkan ka xuso uga faa'iidaysto wasiirkiisii daakhiliga cali maxamed waracadde ayuu madaxweynuhu wuxuu go'aansaday inuu bedelo oo maadaamuu doonayay inuu maamul fidin ku sameeyo gobolka sool oo dabcanna uu ku sameeyey oo muxuu ahaa 177 goobood bay gobolka sool doorashadiisa xor iyo xalaal uga dhacday oo arrimahaasi ay ka mid ahayd sidii nabadaynaha aanu u samaynay madaxweynuhu hogaaminayay hormoodka noogu ahaa iyo tallaabooyinku qaaday ayuu wuxuu damcay inuu wasiir reer soola wasiirka daakhiliga ka dhigo soo arrimaha ugu guulaysto cali maxamed warcadde wasiirkii daakhiliga wasiir culus ah wasiirada ugu tunka weynaa xukuumadda ah saaxiibkii ah nin weyn ah wuxuu go'aansaday inaanu ka maqashiin isbeddelka idaacadda gorfiida buu u yeedhay anigu waa la fadhiyey hadalkii buu madaxweynuhu bilaabay arrintaasaan go'aansaday inaan xilkaa wasiir reer soola u magacaabo anoo siyaasadda uga gon leh adigana aan wasaaradda duulista ku geeyo cala waxaan doonaya de arrintaasaan kuula imiye maxaad ka leedahay wuxuu ugu dhigay sidii reer miyigu markuu hangoolka meel ka geynayo isagoo garanaya halkuu ka goynayo odhan jiray oo geel jiraa kale wararkaan ka gooya hadda way u sugta tahay cali wuxuu ku yidhi madaxweyne ma yeeleen waana calool xumaan laha haddiise aad aragtidaa garwaaqsatay inay wax ku kordhayaan nin reer soolaan aad igu bedelayso waa ogolahay waana taageerayaa waxaan si ka cudur daaranayaa wasiirka duulista dib beri horaan soo maray dib hay cilin buu yidhi wala kaftama wuxuu ka dhigay madaxweynuhu markaa dambe la taliyiisa khaaska ah waxay dhacdadaan u soo qaaday ay muujinaysaa siduu u maareeyay arrin adag oo go'aan uu qaadan karayo fududaa inuu saxiixo ku sinaa siduu u maareeyay cabqirinimada le waxay muujinaysaa hogaamiyenimadiisii iyo muxuu ahaayey iyo wixii la midka ah waxaa jirtay xisbiga kulmiye mar labaad baa khilaaf ku soo noqday tartana in lagu tartamo jagada musharaxnimada markii madaxweynuhu caddeeyey inuu ka hadhay tartankii madaxweynenimada muddo xileed labaad waxaa raggii damaca yeeshay ka mid noqday xirsi cali xaaji xasan oo ah wasiirka madaxtooyada arrintaasi way fiday hadalhayn buu madaxweynuhu maqlay goorfiida buu bishii julaay waqti aan ku qiyaasayo 2015 noo yeedhay aniga xirsi oo qudha labadayada waxaanu noogu yeedhay hadalkii markuu furay waxaa isoo gaadhay inaad labadiinnan wasiir tartanna idinka dhexeeya ay ishaysaan waxna aad doonaysaanoo musharaxiintii arrintaa iga warrama anigaa hadlay hadalka ku horreeyey waxaana madaxweyne aniga xirsi isma hayno laba wasiir baanu nahay colaadina nagama dhaxayso way jiraan arrimahaanu ku kala aragti duwannahay xirsi oo la xidhiidha mawduucan anigu musharax uma ihi xisbiga kulmiye muddo xileedkiisa labaad nin u tartamaya jagadaa oo hungurigaa qaba ma ihi mana arka ra'yigaasi inuu saalax yahay sababtaa darteed aanan hadda u qabin xirsi baa hadlay wuxuu yidhi anigu madaxweyne hungurigaasi wuu igu jiraa waana kula soo shaqaynay raggaagiina waa nahay dee xaq baanu leenahay wuxuu waa dimuqraadiyada in la tartamo dee haddaan helana alxamdulilah haddaan dee waayana waa taageeraya wixii hela halkaasuu mariyey madaxweynuhu wuxuu yidhi nimayow waxaan idinku yeedhay ama midkiin waxaad doonaya ama labadiinuba wax doona ma ogoli rag kaaliyaashayda ahi inay isu sharaxaan musharaxiin ka noqdaan xisbiga kulmiye iyagoo xilalkan haya aan anigu magacaabay xirsi wuxuu isku dayay inuu madaxweynaha uu hadalkii ku celceliyo oo ra'yigiisa ku madax adaygo madaxweynuhuna waa ganafku ku dhuftay wuxuu gaadhay
adiga oo gacan yarahayga ah ma tartami kartid xirsiyo ninka beeshayna dibadda jooga anigu ikhtiyaarkiisa taageerina maayo ikhtiyaarkiisana dee anigu ma hayo laakiin idinku waxaad tihiin rag ila shaqeeya oo aan anigu magacaabay waxay ahayd mowqif adag oo aanu arkayay inuu madaxweynuhu ku saxnaa xisbigiisana mar labaad ku badbaadinayey dee haddii aanu talada qarankan gacanta axmed siilaanya ku hayn maankiisa iyo miyirkiisu dhammayn mawaaqiifta go-aanka adag leh ee gacanyareeyaashiisa saamaynta adag ku leh ama taban dee ma qaateen waxaa ka mid ahaa kala qaadistii doorashadii wakiilada iyo madaxtooyada sebtembar 2016 madaxweynuhu arrintaas wuxuu u saaray guddi xisbiyada ka mida iyo akademiyadda madaxweynuhu way ku soo celiyaan waxay yidhaahdeen madaxweyne adigu labadii ra'yi baa soo baxay labadii doorasho inaanay isqaadan karayn nabadgelyada dalka saamayn ku leedahay culays badani jiro madaxweynuhu guddi wuxuu u saaray saddexdii xisbi waxay ku soo celiyeen madaxweynaha laba ra'yi ay leeyihiin madaxweyne adigu labadaa doorasho in la kala qaado iyo inaan la kala qaadin go-aan ka qaado iyo qaybinta kuraasta labadaba madaxweynuhu go-aan buu qaatay in labadii doorasho la kala qaado maslaxadda nabadgelyada qaranka ayuu u arkay nabadgelyada wuxuu arkay inay ka horeyso dimuqraadiyadda iyo wixii la mida wuxuu u gudbiyey maxaa golihii wakiilada wuxuu u gudbiyey maxkamaddii sare u gudbiyey kadibna golihii wakiilada lagu soo celiyey go-aanka uu ka soo bilaabmay culays baa nagaga yimi beeshii caalamka oo ah maxaa labada doorasho u kala reebaysaa iyo dib u dhicii doorashada labadaba oo beesha caalamka ay weliba saamiga badan inta badan lacagta doorashooyinka bixin jirtay wuu dhabar adagay madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay go-aankii golayaasha iyo maxkamadda sare maslaxaddii ummaddu u arkaynaysaa ahayd isagoo musharaxna mu ahayn wuxuu arkayay in nabadgelyada iyo bidqabka qarankani uu sidan ku jiray wuu saxnaa madaxweynuhu dee kursigii doorashada madaxtooyada oo 6 nin tartamayeen baa buuq badani uu ka dhashay haarihiisiina weli aynu qabnaa iyo qaybsanaantiisa muxuu ahaa 3 meelood min 82 qof ah oo 3 daloo laba dhacday waad garan karaysaa iyadana laba doorasho la isku qabtay ra'yi sawaaba buu ahaa madaxweynuhu saas u maariyay axmed siinaanyo waxaanu hayn garcanyareyaashiisii aniga iyo xirsi iyo rag badan oo kaleba warqad kasta oo aan ama iyo khudbadaha aan loo soo qoro iyo waraaqaha loo soo qoro weligii ma saxiixin warqad aanu akhriyin oo fiinin khudbadaha ilaa komada iyo kabta literku nagu qabsan jiray weerdin ku oran jiray ereyada bedel wuxuu ahaa dee madaxweynaha xiskiisa qabay ayuu ahaa wuxuu ahaa xilligaan la shaqaynayay dhacdada u dambaysa ayaan 11 maalin ka mida maalmaha golaha wasiirada nin wasiiru dawle ah ayaanu afku naga duulay shirkii golaha wasiirada maalin khamiisa oonu muranay labadoodiiba hadallo fara badan isku celcelinay markii shirku dhamaaday ee uu dusha u baxay ayuu ii yeedhay madaxweynuhu anoo hoosta fadhiya xafiiskayga way canaantay wuxuu ugu yiri maanta inaad golaha hadallada kaga tiraado wasiiru dawlihii markii horena uu kala aaminsiyo dee miisku garaacay waanu qaadanay inaad sidaa u hadasho ula hadasho sax ma ahayn qalad bay ahayd waan kugu canaananayaa waan kugu dhaliilayaa madaxweyne markaasaan idhi dabcan dee istifaaco madaxweyne dee isagaa hadalkayga horreeyo caanka iyo caanka mas-uul war gacan yarahaygi baad maxamuudow in uu u arko inaad muxuu ahaayay ilaa anaaba shirka fadhiyo gudoominayay inuu arko wasiir kale inaad awoodayda aad ku hadidayso maaha marka waxay tusaalooyinkaas waxay muujinayaan howlkarnimadii iyo xilgudashadii iyo hal-abuurkii iyo hogaamintii axmed siilaanyo intaa daawadayaal waxaa ku eeg waraysiga aan ka qaaday maxamuud xaashi cabdi siyaasi caanka somalilan xilal badan dabcan ka soo qabtay mudane wasiir hore aad iyo aad ayaad mahadsantay halkan waxaan waraysi gaara kaga qaadayaa wasiirkii hore ee madaxtooyada somalilan sidoo kalena ah siyaasi caanka somalilan
mudane maxamuud xaashi cabdi ugu horeyn telefishinka Ariel uu kaaga mahadnaqayaa waraysigan aad dabcan siinayso in Somaliland waa ogtahay hadalhaynta maalimihii u dambeeyay socotay waa buugga uu qoray hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan buugga oo arrimo badan lagaga hadlay xafladiisina adigu dabcan aad ka qayb gashay ugu horeyn buuggaas sideed u arkaysaa waan kaaga mahad celinayaa kulankan iyo waraysigan waa dhab buuggaas Xirsi Cali Xaaji Xasan qoray ee uu ugu magac daray miyi ilaa madaxtooyada miyiga ilaa madaxtooyada xafladii lagu soo bandhigay waan ka qayb galay hadal waan ka jeediyay waxaan goobta ka sheegay marka laga tago hadalkii kale ballaadhnaa ee meesha ka jeediyay aan ka afeeftay inaan buugga akhriyin xilligan hadlayay buuggaasina wuxuu la soo baxo uu deeleeyahay neef waliba sariirtiisu iibsamaa waan arkaa sida loo hadalhayo buuggaas runtii waxaan jecelahay buugga inaan wax faallaa maxamuud ahaan ka bixin waxaan jecelahay inaan u daayo qiimeyntiisa iyo ka falcelintiisa bulshada Somaliland waxgaradka bahda qoraalada wixii uu gefaf ku duugan iyo wixii uu dhaliilay iyo wuxuu wanaag leeyahay intaba arinta intaasaan runtii ku ururin lahaa buugga waxa uu ku xusay hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan in 45 maalmood kadib waa markii madaxweynuhu uu dalka qabtay idinka isaga iyo adigaba la idin yeeray in arinta maxaad ka leedahay arinta Xirsi uu buuggiisa ku qoray anigu maxamuud ahaan goobjoog kamaan ahayn kulan nologu yeeray madaxweynuhu xilligaa uu talada dalkaba ku cusbaa ee uu buulcawska ahaa ee afka qalaadna lagu yeeray honeymoonka kulan nologu yeeray oo macnihiisu daaranaa in madaxweynihii xusuustiisu luntay oo aanu ama xumaatay uu iscasilay la qabeeyay muxuu ahaa walwal ka muuqdo arinta anigu goobjoog kamaan ahayn sida darteed dhacdada markhaati kama yihiin waana mid aan sugnayn way mudane maxamuud xaashi cabdi sidoo kale hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadan Xirsi Cali Xaaji Xasan waxa uu buuggiisa ku qoray in labadii sano ee uu ka maqnaa xukuumadda dabcan marwada madaxweynuhu ay talada dalka ku soo dhawaatay waa sida buugga ku qoran waqtigaana adiga ayaa wasiirka madaxtooyada dabcan ahaa arinta maxaad ka leedahay wuxuu wax ka sheegi karaa muddaxileedkii uu joogay madaxtooyada muddadaana wuu ka warramayo marwada madaxweynaha wuu bari yeelay ammaantii iyo sifooyinka ay lahaydna wuu sugayo anaguna waan sii adkaynayaao marwo wanaagsan aqoon-yahana ilaalisa sharafta ninkeeda iska dhowrta inay farafarayso maamulka dowladda wasiiradaan telefoonna kula hadlin ayay ahayd muddadaa 2 sanaana sidaasay ahayd Xirsi hadduu bari yeelay muddaduu joogay marwada Aamina Waris dee muddo aanu meeshaba joogin eedaynta u eedeeyaa waa eedayn jaban waayo ruuxna kama warramo meel aanu markaa joogin waxay u muuqanaysaa uun dee waranwarye iyo hadal uun aan loo miidaantay laa yashhadu shaahidun bimaa laa yaclam marag waxaanu ogeyn iyo meel aanu joogin dee waxba kama ku fogaan maayo intaas uun baan kaga soo koobi lahaa ammaan bay mudan tahay marwada madaxweynuhu sifaadkaasay lahayd wax faragelinaa 2 sano iyo intii ka horeysay toona maamulka dawladda kumay lahayn mudana waxaad ka mid ahayd wasiiradii waqtiga dheer la soo shaqeeyay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraaye madaxweynihii hore ee Somaliland haddana dad badan waxa ay si uga hadlayaan oo markii buuggaasi dhinacii xusuusta iyo wuxuu ka qoray hogaamiye Xirsi Cali Xaaji Xasan xaaladda caafimaad ee madaxweynihii hore ayay dad basi uga hadleen adiguna waqti dheer waad la soo shaqaysay maxaad arintaa ka oran lahayd waa su'aal fiican weeye Badriyow waxaan leeyahay
madaxweyne siilaanyo waxaan la soo shaqeeyay waqti dheer waxaan ahaa gacan yarihiisii xilligii uu u tartamayey halganka ugu jiray jagada madaxweynenimada ee uu ku guulaystay waxaan ahaa 7 sano wasiir ka mid ah kaaliyaashiisii waxaan ahaa gacan yarihiisii gaarka ahaa 2 sano u dambeeyey caafimaadka madaxweynihii hore jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Siilaanyo waxa uu ahaa mid wanaagsan garashadiisa iyo caqligiisuba waxay ahaayeen taam taasi waa suurto gelisay 7 sano in Axmed Siilaanyo uu dalkan iyo dadkan kala soo dabaasho duruufo adag oo kala duwan haddii Axmed Siilaanyo xiskiisu dhiman yahay ama ay wax ka khaldan yihiin dalkana ma hogaamin kareen waxna ma maamuli kareen waxna ma soo doojin kareen Axmed Siilaanyo ma ahaynin maxbuus oo meel ku xidhan oo ay ka warrami karaan koox iyo raxan ku xeeran waxa hogaamiyay qarankan waxa hogaamiyay bulshada u furan oo bulshada kulamo badan la qaata si joogta ama maalin la haday tahay xubnihii xilaalka u magacaabay haday tahay madax dhaqameedyadii qaranka dalka haday tahay madaxda ururada bulshada haday tahay madaxda xisbiyada qaranka haday tahay madaxda dawladaha dunida ee maalin walba imanayay ee qasriga madaxtooyada imanayay dhammaantood ba xiriir bulala marka xaaladiisu ma ahayn xaalad la qarinayo oo mugdi ku jirta ma ahayn Axmed Siilaanyo wuxuu ahaa nin weyn oo daa taasi ma ahayn macnaheedu ama taasi carqalad kuma keenin hogaamintii qarankan iyo xilgudashadiisii toona Axmed Siilaanyo oo ninka xaaladiisa aan ka warramaya wuxuu ka mid ahaa marka la barbardhigo madaxweynayaashii ka horeeyay wuxuu ahaa madaxweyne ugu xafiis fadhiga badnaa wuxuu ahaa marka madaxweynihii ugu safar badnaa dibad iyo gudaba waxa uu qaamuuska qasriga madaxtooyada dalka looga taliyo ka saaray eray la yiraahdo hal ku dhig iyo hal hays la yiraahdo madaxweyne ma soo digin oo jiri 7 cisho maalinta jimcuhu nasan jiray 6 cisho kale uu shaqeyn jiray maalinta isniinta cid ma arki jirin wuxuu ku shaqeyn jiray dusha waraaqaha wixii correspondence u yimaado akhri jiray wuxuu qorayo diyaarsan jiray marka wuxuu ahaa yaani mas'uulkii ama ruuxa aynkaas waxa jirtay xano iyo dacaayado madaxweynaha caafimaadkiisa ka dhana oo aan ugu bahayn xilligaaba dad ama cadowa ama dad daxaasnimaduna way iska jirtaa ama mucaaradad fogaatay oo cuqdad iyo ceelqabis kale ba iska jiri karta ku arinta ugama jeedo mucaarad oo dhan iyo mas'uuliyiinta mucaaradada xaasha laakiin afraad baa laga yaabaa inay waxa bilaabeen marka warkaasi wuxuu jiray waa war hidayso meelaha la dhukusi jiray buu ahaa waxa jiray nin siyaasi oo caan ah oo la yiraahdo Cabdiraxmaan Ismaan Cabdulle Cabdi Farjar ku magac dheer oo Axmed Siilaanyo ay saaxiib ahaayeen kulii dhexe xisbiga ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM u dambeeyay kamid ahaa golihii wakiilada ee shirweynihii Boorama lagu doortay kamid ahaa aniga iyo Axmed iyo Cabdi Farjar ba isku golaan ahayn saaxiib ay ahaayeen muddo dheer Cabdi Farjar Axmed Siilaanyo ma arag waxa meelaha ku gaaray isagoo burca jooga odaygii waa asaasaqay waxna kala garan maayo Cabdi Farjar waqti dheer baan Axmed Siilaanyo sarag 2016 waqti aanu malaynayo madaxweynaha safar dibadda ka soo laabtay ayuu madaarka dadkii kaga hortagay kamid ah kuyuugii uu galay madaxweynuhu sida caadiga ah markuu dadku soo dhaweeyay hareertaas uu hal qoorweynta qaranka kaga soo bilaaba uu salaama markuu Cabdi marayay ay muddo dheerna Ismaaciil buu Cabdi gacan qaaday oo wara Cabdi Farjar bal iska waran markaasuu Cabdi ila dacaadana waa maqlay mar rumaysan laakiin warka ku badnaa wuxuu madaxweyne maxaa la ilaahay waada saasaqday oo waa taaqaquftay soodigan igartay inagoo muddo dheeraan sarag aan uga socdaa dhacdooyinkii runta habay ahay
axmed siyaad iyo qarankan isagaa hogaaminayay hogaamiyaasha ummadda waxaa lagu qiimeeyaa habboonaanta xilgudashadooda iyo fayoobaanta caqligooda sida fayoobaanta garaadkooda waxaa lagu qiimeeyaa sida ay uga gudbaan duruufaha adag ee ka hor yimaada go'aamada ay qaataan sida ay u yihiin kuwo musiiba ama xikmad u leh waxaan jecelahay bal inaan soo qaato oo bulshadu ila wadaagto dhowr dhacdo oo kala duwan oo mudaxileedkii axmed siilaanyo uu qarankan maamulayay arrimihii adkaa ee soo waajahay go'aamadu qaatay iyo sawirka ay bixinayaan dhacdada koowaad waxa weeye 45 cisho waqti aan ka badnayn waqtigii madaxweyne siilaanyo xilka qaranka loo dhaariyey ee uu tala dalka haaneeday waxaa soo baxday xukuumaddii talada kala wareegay ee xisbigii udub ee uu hormuudka ka ahaa madaxweyne daahir riyaale kaahin oo si wanaagsan oo taariikhda ku xusan yeelay waxaa soo baxday dareemo ah in dowladdii cusbay la wareegtay khasnad madhan iyo dayman ciiddaa ka badan shaqaalihii qarankoon muddo dheer mushaahar qaadan dalkii oo la boobay dareemo caynkaasa rag waaweyn oo xukuumaddii axmed siinaaya ka mid ah wasiiradiisa kuwii ugu waaweynaya ayaa waxay madaxweynaha tale ugu soo jeediyeen iyagoo ku adkaysanaya in arrintaa wax laga qabto oo isbeddelku ka bilaabma arrintaa isbeddelkii kulmiye waday inuu arrintaa ka bilaabo oo raggaas wasiirada ah gaar ahaan raggii la calaamadiyey ee la eedeynayay waxaa ka mid ahaa wasiirkii maaliyadda cawil cali ducaale waxaa ka mid ah guddoomiyihii baanka cabdiraxmaan ducaale waxaa ka mid ah wasiirkii howlaha guud siciid sulub in raggaa la xidho maxkamad la taago axmed siinaanyo go'aan adag buu qaatay wuu ku gacan saydhay si adag buu uga hor yimi arrintaa uma arag maslaxadda ummadda iyo dalkan inay waafaqsan tahay midnimada iyo wadajirka ummadda jawigii sida dimuqraadiya nabdoon talada la isugu wareejiyey inay carshaynayso sumcad xumo Soomaaliland horseedaysa uu arkay ganafku ku dhuftay waxay ahayd tala sawaaba oo saxab madaxweynuhu qaatay dhacdada labaad waxa weeye xilli laga joogo markaa sanad xirsi buugiisa uu ku xusay xilligii uu chief of cabinet-ka sanadkii uu ahaa in qayladu ku badnayd buuq badan jiray dacaayado ka dhani jireen oo dad badan wadeen buugiisa si fiican buu ugu xusay waana xaqiiqo jirtay bay waxaa jiray 10 oday oo waayeel ah oo ka soo jeeda beesha madaxweynaha ayaa madaxweynaha u yimi balan bay ka qabsadeen way yimaadeen markii uu soo fadhiisiyay soo dhaweeyay buu shirka inoo bilaaba waxay yiraahdeen madaxweynaha si shirkeenu inoogu bilaabmo waxaanu ka codsanaynaa inaad naga saarto wasiirka madaxtooyada oo markaa wasiir muddo yar ahaa xirsi sanadkii chief of cabinet-ka kadib hay wuxuu ku yidhi waryaalo waa nimankaas way iswada garanayaan madaxweynaha waa rag waaweyn oo raggii soo dhisay ahaa taageerayaashiisa ahaa maskax iyo muruq iyo maalba la barbar joogay waxba magacooda xusi maayo wuxuu ku yidhi war ninkani waa gacan yarahay waxa aad igala hadashaan markaan qoro diiwaangeliye ee aynu ka qaadaa dhigno kolleyba wuu ogaanayaa way isagaa fayl garaynaya markaa waxba ninay ka qarsoon yihiin ma ahe waa gacan yarahaygiiya inoo wada shirku oo arrinta wada waxay yidhahdeen madaxweyne wasiirkan isagaanu ashkataynayna dacweynayna markaa ma rabno inuu nala joogo wuu ku soo booday wuxuu yidhi madaxweynuhu maya maha sidaa soo isaga dacweyn maysaan ashkatayn maysaan uma socotaan haa waxa u socotaan ma intaasa haa wuu fadhiya wuu xaq u leeyahay inuu dhegaysto dacwadaha iyadaa ka dhana dibadna isdifaaco wuu ku adkaystay madaxweynuhu waxaanu arkayay inay sax ahayd mowqif sax ahayd oo go'aan hogaamiye oo sax u ahaa hadalkii waa margaday way ka xumaadeen waxay dhahaan war madaxweynuhu ninkan xilka ka qaado ninkan isagaa la hadal hayaa dhibaataan isaga hayn ma jirto war xilka sidaa la iskagama qaadan ninkan inta ana magacawday
suuqa laga hadlayaa magacaaban xisana shaqada u dhibtay waxaan qabadii inuu xilkiisa gudanayo maxaa ku eedaynaysaa oo sheega arrimaha xilku ciyaarna iskama qaday badka soo dhiga hadalkii waa murgay waa kala tageen waxay ahayd axmed siinaayo go'aan sax oo hogaamiyenimo qaatay ma ahayn xilsi oo kaliya axmed siinaayo dhaqan buu lahaa dadku xilalka u magacaabay inuu difaaco eedaha ka dhankaa inuu iyagoo bandhigo muxuu ahaayey rag fara badan oo dee aniguba aan ku jirana dee wuu difaaci jiray arrinta saddexaad waxa weeye waa arrinta xilsi laftiisu dhacdooyin badan buu buugga ku qoray oo tusaale u noqon kara hogaamintii axmed siinaayo waxaa ka mid ah dhacdadii shirkii london muxuu ahaa madaxweynaha iyo wafdigiisu ay tageen down street number 10 taariikhdii markii ugu horeysay 17 abril 2013 bay ahayd madaxweynaha madaxdii dowladda ingiriisku ay aad culays ugu saartay inuu shirka yimaado madaxweynuhu maslaxadu ma arag go'aan adag buu qaatay xilsi laftiisu buuggiisu ku xusaya inuu subax la soo hadlay wiilaadeer go'aan baan qaatay inaan meesha tagin waxay talaabo hogaamiyenimo haddaan qarankan daanu madaxweyne ka ahayn go'aamada adag oo maankiisii miyirkiisu fayoobeyn dee ma qaadan kareen waxaa ka mid ah oo afraad xisbiga kulmiye khilaaf xoog la soo galay loolan adag baa muxuu ahaayey dhex maray muddo ayuu xisbiga kulmiye wuxuu la ragaaday khilaaf hadheeyo oo dhexdiisa mucaaradad xooga oo dibadda xisbiga kulmiye iyo madaxweyne siilaan iyo xukuumaddiisa ragaadisay ma jirin laakiin dagaal adag baa xisbigii talada dalka hayay ka dhex dhacay waxaa isu soo sharxay guddoomiye rag badan baa wax doonayay laakiin raggii ugu cadcadaa waxaa ka mid ah wasiirkii maaliyadda cabdicasiis maxamed samaale xilligaa oo ahaa siyaasi culus rugcadaaya nin kambaynada ku fiican ah wasiirkii maaliyaddana madaxweynuhu markii doorashadu soo dhowaatay shirkii guddoomiyaha aakhirkii lagu doortay muuse biixi jagada guddoomiyaha nimada rasmiga loogu doortay markii hore ku meel gaadh buu ahaa 29 abril 2014 ka hor waqti yar wuxuu arkay inuu xisbigu burburi karo dhaawacyo xoog leh ku iman karo hadday sidan ku socoto cabdicasiisna uu madashiisa soo taago talada markuu isku qanciyay dabcan dadna la tashaday wuxuu go'aansaday wuxuu yeedhay wasiirkiisii maaliyadda goorfiida cabdicasiis maxamed samaale oo ah raggii soo dhisay wasiirkiisii maaliyadda nimuu ku kalsoon yahay jecel yahay isjeceliyina wuxuu u bareeray wuxuu yidhi cabdicasiis waxaan doonayaa jagadaa guddoomiyenimada tartankeeda inaad ka hadho wasiirkii maaliyaddaa tahay jagadaadaa joog muusena xisbigiisa ha haysto muuse biixi cabdi go'aan adag oo qaraar buu ahaa uu u arkay inuu ku kala daweyn karayo ama ku kala xasayn karayo haldoorkiisa loolamaya wuxuu u arkay tartanku waa xalaal waa la tartamaa dimuqraadiyadda ku jirta wuxuu arkay inuu xisbiga dumin karo marka rag awood uu lahoo culus uu ku tartamo go'aan adag buu qaatay axmed siinaayo waxay muujinaysaa dhacdadaasi hogaamiyenimadiisa iyo haldoornimadiisa uu qarankan ku soo maamulay waxaa jirtay doorashadii golaha deegaanka 29 bishii November 2012 ka dhacday dalka oo si wacan u dhacday oo madaxweynuhu fuliyay ballanqaadkiisa ahaa inuu ururadii furo cusbaa waxaa ka soo baxay khilaaf xoogan doorashadii degmada Saylac gaar ahaan laba beelood oo walaalaha degmada Saylac degmo doorashada Saylac gobolka Seleele ka hadlimay waa degmo doorashada Saylac oo degmo bii ah oo 17 kursi xildhibaan laga doorto waxa ka soo baxay khilaaf weyn degmada waxa maamulkeeda gacanta ku soo jiray beesha Ciise waxa dhacday waxa 17 xildhibaan waxa ka soo baxay 7 xildhibaan oo beelaha Ciise iyo 10 xildhibaan oo beelaha Gadabuursiya arrintaas waxay sababtay in ay fariistaan xildhibaanadii beelaha Gadabuursi oo doortaan guddoomiye iyo ku xigeen isku beel ah Xuseen Idla Barkhadle iyo Sacad Daahir Cige ayay u doorteen guddoomiye iyo ku xigeen arrintaas waxay saameysay nabadgelyadii deganaanshihii guud ahaan gobolka Awdal gaar ahaan gobolka Seleele cabatin weyn xoog weyn bay
iyo gilgil bay ku samaysay madaxweynaha mas-uuliyad baa xukuumadda ka saaran wafdi buu diray saylac wasiiro u diray bal arrinta gacanta ku qabta wasiiro iyo xubno mas-uuliyiin oo kalena waxaa loo diray magaala madaxda gobolka awdal boorame anugu ka mid baan ahaa maxamuud ahaan wafdi madaxweyne ku-xigeenka hogaaminayo waa la isku soo noqday arrintii xukuumaddayadii lafteedii iyo madaxdayadii ku kala aragti baan nahay halad baabi iyo doorashada golaha deegaanka ee saylac hala tirtiro ra'yi leh maya de si xalaal u dhacday maxaa loo tirtiraya madaxweynaha at the end marka taladu soo dhabaqdo guddoonka u dambeysay madaxweynaha leh xilligaa waxaa wasiirka arrimaha gudaha maxamed nuur caraale duur oo si wanaagsan u shaqaynayay xaqiiqdii madaxweyne go-aan adag buu qaatay wuxuu guddoonsaday in sideeda doorashadaa loo daayo oo de waa doorasho iyo cod dhacday aanu qalindaarin iyada oo aan waafaqsanayn habkii labada reer la isugu wadi lahaa haddana waxay noqotay qasb doorashadii in sidii loo daayo madaxweyne go-aan adag buu qaatay madaxdii iyo ergadii dadkii ciise ee odayaasha halka u yimid gendiga rag ka socdaa ku jireenna wuxuu ku qanciyey war dowladdan hayo waxaad ka tabanaysaan ee ka doonaysaan wax iga doo weydiista aniga laakiin arrintaasi waa arrin aan waxba ka qaban karin khilaafkii sidii baa lagu dabiyey laba beeloo walaalo isjecel bay hal wada dugo isdhala sidii baa bagooda burcad la isugu mariyey khilaafkiina lagu biyey waxay dhacdo aada iyo aada saameyn u leh gobol weyn runtii ka dhacday waxaa iyadana jirtay 2015 laba beelo oo walaalaaba isku dilay degmada Taleex ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ciidamo badan ayaa madaxweynuhu amray in halka la geeyo Taleex Arooley hol si nabad loo sugo maamul fidina dhinac ka ahay arrintaasi buuq badan bay abuurtay Soomaaliya sida imankaba ciidamadeena tukaraq loo geeyay uga qaylinayaan ay uga qayliyeen dacwooyin bay qoreen beesha caalamka culays baa kaga yimid madaxweynaha beesha caalamka dowladda Mareykanka Ingiriiska midowga Yurub ay leeyihiin ciidankiina ka soo saara Taleex sida iminka tukaraq madaxweyne Muuse Bixiba loo saaray culayska in uu ciidanka ka saaro uu runtii go'aan geesinimo leh u qaatay in ciidanka halkii ku hayo madaxweyne Sinaaya tallaabadaas oo kale u qaato dhaguma jalaqsi wuxuu arkay arrintan inay tahay arrin xad iyo siyaasad saameyn ku leh wuxuu halkan ka diray wafdi uu wasiirka arrimaha dibadda maxamed biixi yoonis hogaaminayo anugu ka mid baan ahaa wasiirka caafimaadka xagla toosiyaa ka mid ahaa wasiirka gaashaandhigga cadami baa ka mid ahaa wasiirka qorsheynta Dr. Sacad baa ka mid wuxuu nagu diray inaanu bulshada caalamka beesha caalamka ku qancino ciidanka inaanu soo saarayn ciidanku xad dhulkiisii joogo dhibaatana aanan wadin waxay arrin adag oo qarannimada Soomaaliland saameyn ku leh waxaa jirtay 26 Oktoobar 2015 khilaafkii xisbiga kulmiye ka dhaxdhacay iyo xukuumadda waxay sababtay in xubno badan xilalkoodii iska casilaan oo xirsi cali xaaji xasan uu ka mid ahaa isagoo wasiirkii madaxtooyada ahaa kursiga jagada markii dambe madaxweynuhu iyo magacaabayna uu isagu iskii u baneeyay maalin adag bay ahayd walwal baa shacbiga Soomaaliland galay siyaasiyiin waaweyn oo golihii xukuumadda ka baxay tijaabay ku ahayd hogaaminta madaxweyne Sinaaya arrintaas bulshadu waxay wada dhigaystay duhurkii iyadoo wada warwarsan oo warbaahintii wareysiyadii iyo istiqaaladihii iscasilaadihii la dhigaystay mas'uuliyiinta duhurkii waxa la sii daayay wareysi madaxweynaha ay ka qaaday BBC-du Axmed Saciid Ciga oo nuxurka uu halkudhigadiisa ay ka mid ahayd nidaamkan waa nidaam madaxtooyo oo u jeeday ma aha dawlad ra'iisul baarlamaan dawlad ka dhisan gole baarlamaano hadday bartagaan dhacaysa waa nidaam madaxtooyo xubnaha de ila shaqeyn waaya maamulka la socon kar waaya xaq bay u leeyihiin de iscasilaan oo ka tagaan kaligoodna cidda xilka qaadi karta ma aha dad badan baa shaqada oo jooyinka buuxinaya xilalkaana waan buuxin doonaa iyagana hadal gobonimo leh iyo galad oo aanu ka tagin xitaa is-abaashigii wada shaqeynta iyo kaaliyanimadii ay u ahaayeen ayuu ka daba tuuro wuxuu ilaahay meel roon iyagana hageey waxaan uga socdaa maalin kadibna wax buuxiyay jagooyinkii ugu muhiimsanaa waxay muujinaysaa duruuftaas siduu uga gudbiyay dalka shacbigii u dejiyey
siyaasaddii u soo dabaalay u muujiyey inuu yahay hogaamiye talada gacanta ku haya oo adag waxa iyaduna ka mid ah dhacdooyinkan jecelahay inaan halkan ka xuso uga faa'iidaysto wasiirkiisii daakhiliga cali maxamed waracadde ayuu madaxweynuhu wuxuu go'aansaday inuu bedelo oo maadaamuu doonayay inuu maamul fidin ku sameeyo gobolka sool oo dabcanna uu ku sameeyey oo muxuu ahaa 177 goobood bay gobolka sool doorashadiisa xor iyo xalaal uga dhacday oo arrimahaasi ay ka mid ahayd sidii nabadaynaha aanu u samaynay ee madaxweynuhu hogaaminayay hormoodka noogu ahaa iyo tallaabooyinku qaaday ayuu wuxuu damcay inuu wasiir reer soola wasiirka daakhiliga ka dhigo soo arrimaha ugu guulayso cali maxamed warcaddo wasiirka daakhiliga wasiir culus ah wasiirada ugu tunka weynaa xukuumadda ah saaxiibkii ah nin weyn ah wuxuu go'aansaday inaanu ka maqashiin isbedelka idaacadda gorfiida buu yeeray anigu waa la fadhiyay hadalkii uu madaxweynuhu bilaabay arrintaasaan go'aansaday inaan xilkaa wasiir reer soola u magacaabo anoo siyaasadda uga gon leh adigana aan wasaaradda duulista ku geeyo cala waxaan doonayaa dee arrintaasaan kuula imiye maxaad ka leedahay wuxuu ugu dhigay sidii reer miyigu markuu hangoolka meel ka geynayo isagoo garanaya halkuu ka goynayo odhan jiray oo geel jiraa kale warargaan ka gooya hadda way u sugta tahay cali wuxuu ku yidhi madaxweyne ma yeeleen waana calool xumaan laha haddiise aad aragtidaa garwaaqsatay inay wax ku kordhayaan nin reer soolaan aad igu bedelayso waa ogolahay waana taageerayaa waxaan si ka cudur daaranayaa wasiirka duulista dib beri horaan soo maray dib hay ciin buu yidhi wala kaftama wuxuu ka dhigay madaxweynuhu markaa dambe la taliyihiisa khaaska ah waxay dhacdada aan u soo qaaday ay muujinaysaa siduu u maareeyey arrin adagoo go'aan uu qaadan karayo fududaa inuu saxeexo ku sinaa siduu u maareeyey cabqirinimada le waxay muujinaysaa hogaamiyenimadiisii iyo muxuu ahaayey iyo wixii la midka ah waxaa jirtay xisbiga kulmiye mar labaad baa khilaaf ku soo noqday tartana in lagu tartamo jagada musharaxnimada markii madaxweynuhu caddeeyey inuu ka hadhay tartankii madaxweynenimada muddo xileed labaad waxaa raggii damaca yeeshay ka mid noqday xirsi cali xaaji xasan oo ah wasiirka madaxtooyada arrintaasi way fiday hadalhayn buu madaxweynuhu maqlay goorfiida buu bishii julaay waqti aan ku qiyaasayo 2015 noo yeedhay aniga xirsi oo qudha labadayada waxaanu noogu yeedhay hadalkii markuu furay waxaa isoo gaadhay inaad labadiinnan wasiir tartanna idinka dhexeeya ay ishaysaan waxna aad doonaysaanoo musharaxiintii arrintaa iga warrama anigaa hadlay hadalka ku horreeyey waxaana madaxweyne aniga xirsi isma hayno laba wasiir baanu nahay colaadina nagama dhaxayso way jiraan arrimahaanu ku kala aragti duwannahay xirsi oo la xidhiidha mawduucan anigu musharax uma ihi xisbiga kulmiye muddaxileedkiisa labaad nin u tartamaya jagadaa oo hungurigaa qaba ma ihi mana arka ra'yigaasi inuu saalax yahay sababtaa darteed aanan hadda u qabin xirsi baa hadlay wuxuu yidhi anigu madaxweyne hungurigaasi wuu igu jiraa waana kula soo shaqaynay raggaagiina waa nahay dee xaq baanu leenahay wuxuu waa dimuqraadiyada in la tartamo dee haddaan helana alxamdulilah haddaan dee waayana waa taageeraya wixii hela halkaasuu mariyey madaxweynuhu wuxuu yidhi nimayow waxaan idinku yeedhay ama midkiin waxaad doonaya ama labadiinuba wax doona ma ogoli rag kaaliyaashayda ahi inay isu sharaxaan musharaxiin ka noqdaan xisbiga kulmiye iyagoo xilalkan haya aan anigu magacaabay xirsi wuxuu isku dayay inuu madaxweynaha uu hadalkii ku celceliyo oo ra'yigiisa ku madax adaygo madaxweynuhuna waa ganafku ku dhuftay wuxuu gaadhay adiga oo gacan yarahayga ah ma tartami kartid xirsigu ninka beesheenna ah ee dibaddaa jooga anigu ikhtiyaarkiisa taageerina maayo ikhtiyaarkiisana dee anigu ma hayo laakiin idinku waxaad tihiin rag ila shaqeeya oo aan anigu magacaabay
waxay mowqif adag oo aanu arkayay inuu madaxweynuhu ku saxnaa xisbigiisana mar labaad ku badbaadinayay dee haddii aanu talada qarankan gacanta Axmed Siilaanyo ku hayn maankiisa iyo miyirkiisu dhammayn muwaaqiifta go'aanka adag leh ee gacanyareeyaashiisa saamaynta adag ku leh ama taban dee ma qaateen waxaa ka mid ahaa kala qaadistii doorashadii wakiilada iyo madaxtooyada September 2016 madaxweynuhu arrintaas wuxuu u saaray guddi xisbiyada ka mida iyo akademiyadda madaxweynuhu uu ku soo celiyeen waxay yiraahdeen madaxweyne adigu labadii ra'yi baa soo baxay labadii doorasho inaanay isqaadan karayn nabadgelyada dalka saameyn ku leedahay culays badani jiro madaxweynuhu guddi wuxuu u saaray saddexdii xisbi waxay ku soo celiyeen madaxweynaha laba ra'yi ay leeyihiin madaxweyne adigu labada doorasho in la kala qaado iyo inaan la kala qaadin go'aan ka qaado iyo qaybinta kuraasta labadaba madaxweynuhu go'aan buu qaatay in labadii doorasho la kala qaado maslaxadda nabadgelyada qaranka ayuu arkay nabadgelyada wuxuu arkay inay ka horeyso dimuqraadiyadda iyo wixii la mid ah wuxuu gudbiyay golihii wakiilada wuxuu gudbiyay maxkamaddii sare u gudbiyay kadibna golihii wakiilada lagu soo celiyay go'aanka uu ka soo bilaabmay culays baa nagaga yimid beeshii caalamka oo ah maxaa labada doorasho u kala reebaysaa iyo dib u dhici doorashada labadaba oo beesha caalamka ay waliba saamiga badan inta badan lacagta doorashooyinka bixin jirtay wuu dhabar adeegay madaxweynuhu wuxuu ku adkaystay go'aankii golayaasha iyo maxkamadda sare maslaxadii ummaddu u arkay inay saahiib isagoo musharaxna mu ahayn wuxuu arkay in nabadgelyada iyo bidqabka qarankani uu sida ku jiray wuu saxnaa madaxweynuhu de kursigii doorashada madaxtooyada oo 6 nin tartamayeen baa buuq badani uu ka dhashay haarihiisina weli aynu qabnaa iyo qaybsanaantiisa muxuu ahaa 3 meelood min 82 qof ah oo 3 daloo laba dhacday wad garan karaysaa iyadana laba doorasho la isku qabtay ra'yi sawaab buu ahaa madaxweynuhu saas u maariyay Axmed Siilaanyo waxaanu hayn garcanyareyaashiisi aniga iyo xirsi iyo rag badan oo kale warqad kasta oo aan ama iyo khudbadaha aan loo soo qoro iyo waraaqaha loo soo qoro weligii ma saxiixin warqad aanu akhriyin oo feenin khudbadaha ilaa komada iyo capital letterku nagu qabsan jiray weerdinku oran jiray ereyada bedel wuxuu ahaa dee madaxweynaha xiskiisa qabay ayuu ahaa wuxuu ahaa xilligaan la shaqaynayay dhacdada u dambaysa ayaan 11 maalin ka mid ah maalmaha golaha wasiirada nin wasiir dawle ah ayaanu afku naga duulay shirkii golaha wasiirada maalin khamiisa oonu muranay labada iyadoo hadallo fara badan isku celcelinay markii shirku dhamaaday ee uu dusha u baxay ayuu ii yeedhay madaxweynuhu anoo hoosta fadhiya xafiiskayga way canaantay wuxuu yiri maanta inaad golaha hadallada kaga tiraado wasiir dawlihii markii horena uu kala aaminsiyo de miisku garaacay waanu qaadanay inaad sida u hadasho ula hadasho sax ma ahayn qalad bay ahayd waan kugu canaananayaa waan kugu dhaliilayaa madaxweyne markaasaan iri dabcan de istifaaco madaxweyne isaga hadalkayga horreeyo caanka iyo caanka mas'uul oo war gacan yarahaygi baad maxamuudo in uu arko inaad muxuu ahaayay ilaa anaaba shirka fadhiyo gudoominayay inuu arko wasiir kale inaad awoodayda aad ku hadidayso maaha marka waxay tusaalooyinkaas waxay muujinayaan hawlkarnimadii iyo xilgudashadii iyo hal abuurkii iyo hogaamintii Axmed Siilaanyo intaa daawadayaal waxaa ku